الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع maanta aan ku tala galnay inaan wadaagno ama aan kala faa'iideysano waa mawduuca meesha ku qornaa oo ka hadlaya mas'uuliyadda ardayga gaar ahaan ardayga jaamiciga ah ee jaamacadda dhigta mas'uuliyadaha laga rabo maxay yihiin waa maxay xilka saaran ardayga jaamiciga oo uga duwanaan karo dabcan ardada kale ama uu dadka dheeraan karo maxay tahay qofku waxa laga yaabaa inuu soo maray heerar waxbarasho dugsi sare ka soo baxay mar uu lahaa ilaahayow jaamacad ma dhigan doonaa ilaahay waa uu aqbalay ducadiisi laakiin mas'uuliyad baa saaran xuquuq baa lagu leeyahay waxa laga rabaa inuu mas'uuliyadaas guto aan bal qaybinay mas'uuliyadaha aan dhahno laba qaybood mas'uuliyad qofka shakhsiyan looga rabo asaga oo naftiisu ay ku leedahay ardayga iyo mas'uuliyad bulshadu ay ku leedahay xil baa labadaba ka saaran naftaada mid ka saaran mas'uuliyad badan way aad u badan iyo bulshada aan la nooshahay deegaanka aad ku nooshahay iyo danta guud ka saaran waa laba mas'uuliyad dabcan waa la garan karaa qof kasta oo ku guuleysta midda shakhsiyadiisa koowaad wax badan dadku waa u tari karaa ummad kale oo wax u qaban karaa tusaale yar aan la soo boodo oo labada mas'uuliyad kala saari kara aadna loo fahmi karo waa aragteen diyaaradaha rakaabka ah ee dadka qaado oo laga yaabo inay saaran yihiin boqolaal ama dad badan ay saaran yihiin iyo diyaaradaha halka qof labada qof ay wadaan kuwa dagaalka oo kala hadii aan isweydiino midee iska le parachute oo qofku markuu dareemo khatar uu ka boodi karaa midda oo dadweynaha miyaa laga boodi karaa ama parachute leedahay taas anu kale ma aqaan inay leedahay laakiin markii aan fakaro waxaan isiri amaysan lahayn oo hadii uu qofku khatar dareemo kaligiisa boodi lahaa dadka boqolaal ayagoo saaran yihiin laga boodi lahaa marka mas'uuliyad weyn ah qofka saaran markaas oo ah tiisana inuu badbaadiyo dadka saaran inuu badbaadiyo waa laga yaabaa tan kale qofka waxa saaran inuu isbadbaadiyo hadii diyaaraddu badbaadin karaan uu badbaadiyo taasina waxa saarnaa qofka dadka diyaaradda inta waa saarnayd marka qofka mas'uuliyadda guud mas'uuliyad aad u weyn way laakiin taadi ma ku guuleysatay naftaadi qofka mas'uuliyadiisa naftiisa ma ku guuleystay wuxuu isdheey karaa waa maxay muujiyaasha muujinaya in aan anigu mas'uuliyadii la iga rabay ku guuleystay aan su'aalo boobtiis u sheego su'aalahaas bal isweydii inaad ku fiican tahay haddii su'aalahaas ku fiican tahay midii aan sheegaba qaar waxa ku dhitaa sax mid waxa tiraahdaa qalad tan kuma fiicni tan waa ku fiicanahay su'aalahaas bal isweydii si aan u aragno inaad mas'uuliyadaadii gudatay oo ku leedahay aan ka bilaabo waqtigaagu ma ku maareysan yahay waqtigaaga arday hadaa tahay waqtigaaga ma ku habeeysan yahay dadku waxay dhahaan inta badan waqtiga la maareeyo laakiin waxaad moodaa in waxa la maareeyay ay tahay hawsha time management waxa ka haboonba task management in qofku shaqadiisa uu kala habeeyo hadaa arday tahay arday jaamiciya tahay waqtigaaga ma ku habeeysan yahay mase hadii la fiiriyo bal adiga is xisaabe maanta ma leedahay jadwal ku degsan oo maanta qabato mase maanta cid kasta ayaa u ah waqtigaaga meel uga banaayay oo jadwal u ah qofka haduusan jadwal lahayn hada jidku maraabo waa u jadwal hadaadan hadaf lahayn dhabaha martaaba waa kaagii meeshii ahradu ku geenaya oo hadaf la'aan tahay marka arday ma jira aan hadaf lahayn arday ma jira aan jadwal lahayn ka soo qaad fiiriya ardada markii aan xiliyada imtixaanka la gaaro sida aan wax u akhrino hadda ma u akhrinaa
marka imtixaanka la gaaro ma dhacdaa in galaaska soo gal laga waayo oo leedahay waxbaan akhrinaya ii kaadiye la usbuucyada imtixaanka uu socda ka soo qad 2 usbuuc 3 usbuuc waqtiga aad akhris gelisaa ilaa intee la eg yahay aad ma badna hadii waqtiga la qaybin lahaa waa hore waan nasan lahayn mar hore aan nasan lahayn marka aan fiirino shay walba ma noo leeyahay waqti habaysan ama jadwal loogu talagalay shay walba وأنا جامعات waxay soo saartaa xisooyin semester wuxuu sameeyaa usbuuciyo bilo taas lagu dejiyaa xilli hebel imtixaanka waa la soo dejiyaa waxbarashada semesterkaas waa la soo dejiyaa laakiin aad maxaa ku dhigsan maxaa qorato jadwala waa qodob kamid ah qodobada macnaheedu naftaada su'aalan ku weydiiyay naftaada daacad ma u tahay cid kale iska daayay naftaada daacad ma u tahay intaan cid kale la gaarin qofku naftiisa dhab ma u yahay waxa uu rabo inuu sameeyo wanaageedi qola maalin aan tababar siinay oo shirkada ka socday ba waxaan weydiiyay su'aal oranaysa daacad ma tihiin amaana ma leedihiin dhammaan gacantay taagoona waxay dhaheen waxa amaana leenahay daacad baan nahay waana fiicannahay waxaan u qaybiyay warqado ay su'aalo ku qoran yihiin waxaan ila su'aalahaas ka jawaaba waxa soo bixi doona inaad daacad tihiin in kale idinkana su'aalahaas ka jawaaba mid dhinac idinka aadan ku aadi su'aasha waxa ka mid ahayd waqtiga aad soo gasho shirkadda aad soo gasho waqtiga ma soo hormartaa ma daahdaa marmar waa soo dhaqsataa mase waa daahdaa mase waa soo adi isku tijaabi ardaynimadaadii ha maya marmar dheh waxaan weydiiyey markaa xafiiska joogtaan warqadaha xafiisku iska leeyahay oo xafiiska u gaarka ah ma isticmaashaan danahada gaarka ma isticmaashaa ha maya marmar telefoonka shirkadu leedahay adoo kaagi uu ku yaalo kan shirkada ma u isticmaashaa dana gaara dad kale ka waco cidaadi ka wac ilmahaadi ka wac kaagana dhaqaalayso bay ma samaysaan ha maya marmar maanta waagta meesha taala shirkada taala danahada gaarka ma u isticmaashaa qaar ba dhacda marmar ina xaafadaada u geyso ilmahaaga asiiso oo markay cabaar joogaan ba tabaano aabba waxa loo keeni jirtay ama meelaha nooga soo qaadi jirtay umadaha kale waa ka qatan yihiin waa meesha ay ka shaqeynayso waxeedii qaabanaysa ma dhacda marmar in aad wax xad dhaafa ka daabacato meesha dana adi aa u leedahay u daabacato warqada ka daabacato buug ku dhow warqada badan ku dhow ha dheh ama maya dheh ama marmar galabtii marka la baxayo ma dhaqsataa ha maya marmar horma oradaa mase gadaal su'aalaha bir ka jawaabeen ba aan waxa weydiiyay yaa daacada waxay isku waafaqeen intee dhaarteen hal qof oo daacada lagu jiro waxaas oo waxaan sameeyno intaas arday marka tahay noloshaada ku dabaq ma adaa isdira bas waa lagu diraa hawshaada noloshaada ma lagu diraa ma soo la hada tira waa la idiraa oo ana isma diro oo salaada subaxeed baa la ikiciyay oo iswaal ibraarujiyadii hatta iska hurdo jaamacadii meeyada waa la yiraahdaa hadaan wax akhrisan waayo imtixaanka ila hadla oo yiraahdo waa la gaaray waqtigii markaas wax akhriya waa la idiraa ana isma diro